Fatwa waa haweeneyda ah oo degan mid ka mid ah filooyinka magaalada. Waxay ogaatay in filada diriskeeda ay soo degeen qoys cusub. Fatwa waxa ay doontay in ay booqato qoyskaasi cusub, laakiin ninkeeda ayaa ka codsaday in ay u sugto muddo bil ah ama ugu yaraan 2 isbuuc. Waxaa laga yaabaa qoyskani in ay u diyaarsaneen in ay soo dhaweeyaan marti. Fatwa waxba kama soo qaadin hadalka odigeeda. 10 cisho kadib, xilli oo ninkeeda guriga ka sii baxayo asaga oo ku sii jeedo shaqadiisa, Fatwa waa ay baxday, waxa ayna u gashay reerkii diriskeeda ahaa. Waxay u tagtay ayada oo gurigeeda hagaajinayso. Islaantii diriskeeda ahayd ayaa ayada oo xishoonaysa ka cudur daaratay soo dhaweynteeda. Fatwa waxa ay ku laabatay gurigeeda. Markii la gaaray galabtii, ninkeedii oo shaqadiisii ka soo laabtay ayay u sheegtay, ayadoo ku tiri naagta diriskeena ah waa mid baqiil ah. Maanta mar aan booqday gurigeeda waxaan ugu tagay gurigeeda oo kala daadsan, waa ayna isoo dhaweyn weyday. Ninkii ayaa ku yiri xaaskiisa, Fatwa adiga isku day in markasta malahaaga oo wanaagsanaado. Waxaad u tagtay adigoo lagu ballamin. Waxaa laga yaabaa hadalka ay kugu dhahday inaysan ba awoodin oo ay haysanin waxa ay kugu soo dhaweyso, ama ay soo martay duruuf adag tii annagana soo martay oo kala ah. Qaala ta'ala: yaa ayyuhalladhiina aamanuu ijtanibuu kathiiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun. Allah quraankiisa waxa uu ku yiri, dadka Alle iyo rasuulkiisa rumaysanow, ka fogaada in badan malaha qaar waa dambi. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri, iyaakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadiis. Waxaan kaaga digayaa malada, maxaa yeelay iyadu waa sheeko midda ugu beenta badan. Maalmo kadib waxaa la soo xiriiray Fatwa walaalkeeda oo ku hooyay ku aaba ah. Waxa uu u sheegay in ay u imaanayaan asaga iyo xaaskiisa. Waxay gashay jikada si ay ugu diyaariso waxa ay heli karto, balse waxa ay u diyaariso oo ay ku soo dhaweyso martida u soo socota waa ay weyday oo aan ka ahayn hal mir oo burtuqaal ah. Waxa ayna ugu sameysay 2 koob oo cabitaan ah. Goortii ay u soo galeen walaalkeed iyo xaaskiisa oo ay la socoto hooyadeed, kadis ayay ku noqotay. Waxa ay sameysay ayayna garan weyday. Waana markii ugu horeysay oo ay soo booqdaano. Waxa ay kala siisay 2 koob ee cabitaanka burtuqaalka ahaa gabadhii hooyadeed, ayada oo walaalkeedna siisay koob biyo caadi ay ku jiraano. Waxa ayna ku tiri, adiga waxaan ku siinayaa koobkan liinta ah. Waxaan ogahay in aad liinta aad u jeceshahay. Wiilkii waa uu ka baday koobkii. Waxa uu ogaaday in cabitaankani uu liin ahayn oo biyo caadi yahay. Hooyadii ayaa ayadana tiri, anigaba aad ayaan u jeclahay cabitaanka liinta ee ani isii. Fatwa markay maqashay hadalka aad ayay u xishootay, laakiin waxaa ka badbaadiyay walaalkeeda oo hooyadii ku yiri, tani ma ahan liintii caadiga ahayd. Hooyadii ayaa ku tiri, iska daa markaa, aniga ma rabo liin wax kale lagu daray. Goortii ay bixi rabeen, wiilkii ayaa walaashii Fatwa dhinac ula baxay. Waxa uuna siiyay xoogaa lacag ah. Waxa uuna ku yiri asagoo dhoola cadeynaya, mar kale cabitaanka ha ka iloobin in sokor aad ku darto. Waxa ayna soo xasuusatay gabadhii diriskeeda ahayd ee malaha xun ka qaaday ee ceebaheeda uu qarin weyday, sida uu walaalkeeda maanta ayada ugu qariyay ceebaheeda oo kale. Aad ayayna ugu murugootay. Waxa ayna go'aansatay in ay u tagto diriskeeda, afisna ka dalbato waxa ay ku sameysay. Sidoo kale waxa ay go'aansatay in ay marnaba qof ceebihiisa faafin doonin. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.